kulanti wanaagsan daawadayaal halkan warbaahinta Soomaali Vlogger Media ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka qaybtan qodobada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo hubka dhagis ku sameysay mas'uuliyiinta baaxsanaa madaxweyne lafta kareen haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa hubka dhagista dowladdu ay ku sameysay mas'uuliyiintan waan soo qaadan doonaa qodobada kale aad ku daawan doontaan qaybtan waxaa ka mid ah ciidamada baaxsan lafta kareen uu gaaray gobolka Gedo iyo xiisad culus oo halkaasi ka taagan haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa in ciidanka halkaasi ay gaaraan waan soo qaadan doonaa qodobada kale aad qaybtan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo u amabaxay Imaaraadka Carabta haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa safarka madaxweyne Ciro waynu soo qaadan doonaa qodobadan iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan qaybtan haddii aad nagu cusub tahay kusoo bir warbaahinta Soomaali Vlogger Media oo subscribe saaro haddii aad hore nala joogtaan waad ku mahadsan tahay like muuqaalka sina share karee waa hagaag aan ku bilaabo dowladda federaalka Soomaaliya oo wali ku mashquulsan xaaladda koonfur galbeed kadib isbedelkii ay ka sameysay magaalada Baydhabo ayaa haatan waxay bilowday inay hubka dhagis ay ku sameyso qaar ka mid ah mas'uuliyiintii daabacsanaa maamulkii lafta kareen ee ku haray magaaladaasi si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada ka socda halkaasi ciidamada dowladda ayaa bilaabay inay beegsadaan mas'uuliyiinta koonfur galbeed iyadoo ujeedada lagu sheegay hub ururin si markaa loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada siday ogaatay warbaahinta waxaa hubka lagala wareegay wasiir ku-xigeenkii amniga koonfur galbeed Maxamed Yuusuf iyada oo sidoo kale laga qaaday ciidankii ilaalada u ahaa kadib markii la tuhmay mas'uulkaasi oo ka mid ahaa raggii horey uu la soo shaqeeyay ee Cabdicasiis lafta kareen wararka ayaa intaasi ku sii daraya in shalay sidoo kale xabsi guri la geliyay duqa magaalada Baydhabo Cabdullaahi Watiin iyadoo sidoo kale laga qaaday ilaaladiisa Watiin ayaa dhawaan dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kadib dadaalo ay sameysay filla Soomaaliya waxaana uu la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku balameen in shaqadii uu halkeeda ka sii wado si aan loo dareemin habsanaan duqa dhaqdhaqaaqyadan ayaa u muuqda kuwa ay dowladda ku xakameyneyso xaaladda kacsan ee koonfur galbeed ee ka gadaal markii ciidamadii daabacsanaa lafta kareen ay maalmo ka hor iyaguna ku dhaqaaqeen ama way ku dhawaaqeen in dowladda dhexe aysan doorasho ka qaban kareynin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay intaas kadib waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda taasoo keentay in ciidamada koonfur galbeed u cararaan dhanka iyo gobolka Gedo halkaasi oo ay geeyeen hubka iyo gaadiid ay markaasi wadeen xiisadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay maamulka koonfur galbeed ay ka qabato doorashooyin qof iyo cod ah taas oo ay diidan yihiin ciidamada daabacsan madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta kareen xaaladda koonfur galbeed ayaa waxay tahay marba mar ka dambeysa mid ay ka soo baxayaan warar kala duwan oo isdiidan iyadoo markaana lagu soo waramayo dowladda Soomaaliya in ugu dambeyntii hubka dhigis weyn ay ku sameysay mas'uuliyiin daabacsanaa madaxweynihii maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis lafta kareen oo ay ka mid yihiin duqii magaalada Baydhabo iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenkii amniga magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya daawada sidee u aragtaa hubka dhagistan dowladda Soomaaliya ay ku sameysay mas'uuliyiintii daabacsanaa madaxweyne lafta kareen aragtidaada qaybta faalada nagu reeb dhanka kale haddii aynu eegno daawadayaal madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay booqasho rasmi ah ay ugu amabaxeen dalka Isutaga Imaaraadka Carabta safarka madaxweynaha Somaliland ayaana imaanaya kadib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta oo haatan xiriir xoog la leh maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa oo ah caasimadda maamulkaasi madaxweynaha Somaliland ayaa waxaa safarkan ku welinaya wasiiro ka mid ah xukuumaddiisa kuwaasi oo qayb ka ah wadahadallada labada dhinac Ciro iyo wafdigiisa waxay Imaaraadka ku sugnaan doonaan leeyahay dhowr cisho oo soo aatan iyaga oo kulamo kala duwan la yeelan doona madaxda dalkaasi oo haatan kalaan kala xoogan ku leh arrimaha Somaliland labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadli doona arrimaha mudnaanta u leh labada dowladood sida ay labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadli doona arrimaha mudnaanta u leh maamulka Somaliland iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale labada shacab ay ka soo kala jeedaan madaxtooyada Somaliland oo qoraal kooban soo saartay ayaa sheegtay in safarkan uu yahay mid shaqo isla markaana lagu xoojinayo cilaaqaadka ka dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Dubai warbaahinta ku hadasha afka maamulka Somaliland ayaa sidoo kale sheegtay in safarka Ciro uu noqon doono mid ka farxiya shacabka Somaliland isla markaana dhabarjab weyn ku ah cadawga qarankan la aqoonsaday ee Somaliland sida ay ku sheegeen qoraalka ka soo baxay maamulka Somaliland
safarkan ayaa kusoo aadayo iyadoo horey dowladda Soomaaliya ay dalka uga ceyrisay Imaaraadka kadib markii ay baabi'isay dhammaan heshiisyadii lala galay sababo la xiriira xadgudubyo uu Imaaraadku kula kacay midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Hargeysa iyo Abu Dhabi ayaa waxaa haatan ka dhexeeya xiriir toos ah oo diblomaasiyadeed kuwaas oo keenay in marar badan uu madaxweyne Ciro isaga daba laabtay dalka Imaaraadka si markaa loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac waa Somaliland iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Ciro iyo uu hogaaminayo ayna maanta halkaasi u amabaxay. Haddaba daawada sidoo aragtaa safarka Ciro uu ku aaday Imaaraadka Carabta iyadoo dhawaana dowladda Soomaaliya dalkaasi guud ahaanba xiriirka diblomaasiyadeed u jartay. Aragtidaada qaybta hoose ee falooyinka nagu reeb waad ku baahan tahay haddii aad naga soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka. Waxaan ku xusuusinayaa haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir warbaahinta Somali Vlogger Media muuqaalka la extar sin shirkare mahadsanid.